waayahay bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah. saaxiibayaal soo dhawaada, waa markeenii saddexaad cashirkeenii saddexaad oo ku saabsan wordpresska. hadduu la yiraahdo insha allah cashirkeenii saddexaad waxaan ku baran doonaa sida wordpress website-ka loogu shubto free theme free ah. so haddaan wax yar aan dib aan isku xasuusino cashirka koowaad waxaan ku soo baranay sida wordpresska computer gudihiisa loogu shubto, sida wordpress loo soo degsado, wordpress serverka uu ka kacayo, qaabka bashas qaabka loo geeyo, sida loo abuuro MySQL database, sida loo abuuro sida database-ka iyo wordpress isku xira. cashirka koowaad aan soo fahamnay. cidii aanan fahamsaneyn insha allah waxay sameyn kartaa cashiradii aan hore usoo duubnay ayay dib ugu laabanaysaa insha allah. so marka cashirka koowaad intaas ku soo qaadanay. cashirka labaadna waxaan kusoo fahamnay oo weliba sharaxaad dheer ilaa iyo 30 daqiiqo ama nus saac socota aan kusoo qaadanay, aan kusoo kala dhignay dashboard-ka, waxyaabaha uu ka kooban yahay, features waxyaabaha uu leeyahay, posteskiisa, pageskiisa, appearance-kiisa, widgetska, userkiisa, qaybaha uu kala baxo, waxyaabahaas oo dhan cashirkeenii labaad ayaan kusoo fahamnay, si fiican ugu soo sharaxnay. biidnillaah cashirkeenii saddexaad waxaan ku baranaynaa hadduu la yiraahdo sida loogu shubto Astra, sida theme sida loogu shubto ayaan ku baranaynaa insha allah cashirkeenii saddexaad wordpresska, sida theme loogu shubto. haddaan hadda website-ka u imaado dabcan hadda waa kana uu ikacsan yahay. marka hadda taabiyadan iska xiro, kan leefa iska leeyahay, midkaan leefa leeyahay, midkaan leefa leeyahay, midkaan leefa leeyahay. hadda waa kana website-ka uu ikacsan yahay. so marka dashboard-kiisa waa kana, waa kii cashirka labaad aan kusoo sharxeyn. marka daara warta inaad theme ku darsado waxaan leeyahay appearance yaa leeyahay. appearance marka kadib waxaan leeyahay themes yaa leeyahay, macnaha themes ay imaado. themes marka imaado kadib waxaan leeyahay add new, mid cusub ugu daraa leeyahay. dadka qaar ama arday qaar waxay sameeyaan ayagoosan add new dhihin, mid cusub ugu darin, meesha ayay ku qoraan theme-ka magaciisa. marka hadda meesha hadda theme magaciisa ku qortid, tusaalahan oo kale dhahdid news website ama dhahdid e-commerce ama waxa la mid dhahdid, waxba ma ku keenayo. maxaa yeelay meeshan waxa ku soo galayo theme-ka oo website-kan uu ku shuban la ku soo galayo. hadda theme-ka sida default-ga intaana ku jirto 2016, 17, 19 iyo 2020 intaas bis la ku jiraan. so marka meeshan waa muhiim si fiican iska ilaali. waxaa leedahay horta ku add new waa leedahay, macnaha mid cusub ugu dara leh. add new laba meel ka dhigi kartaa, ama meeshan kore badankan korona waa ka dhigi kartaa. sidoo kale add new waxaa kaloo ka dhigi kartaa meeshan hoosena ku qoran tahay add new, labadaba isticmaali kartaa. so marka taas sidaas loo fahmo insha allah. add new waa leeyahay maadaama aadeen cusub raw ah soo darsan. marka add new aan dhaho sa ujeedin meeshan theme badan oo qurux badan igaga soo baxay. sa ujeedid alhenalite, cola, shuttle, news, theme badan oo qurxana isu. meeshaan marka waxaad sameyn kartaa search themes, waxaad ku qoranaysaa magaca theme-ka aad rabto ku qoranaysaa. balse dad badan ay sameeyaan oo kale, theme-ka ay soo iibsadaan. hadda saas u soo iibsatid theme-ka soo qaadatid macnaha ama flash ugu shubtid ama computer-kaada ku yaalo, upload theme ku dhafanaysa. upload theme ka ku dhifatid juice file ku leeyahay oo file-kaada meesha uu ku yaalo computer-ka ka dooranaysaa. badana dadku waxay sameeyaan theme-ka waxay ka soo iibsadaan URL-kan themeforest.net. waxaa laga helaa theme-sida oo premium-ka leh ama lacagta leh laga helaa. marka sa ujeedid themes ku buuxo inta waxaad ku qoraysaa marka theme-ka aad rabtid. tusaalahan oo kale e-commerce oo kale daarabtid, e-commerce leedahay, kadib enter leedahay. enter marka dhahdid kadib sa ujeedid meeshaan themes badan oo ka soo taxay iyo qiimihiis. midkan wuxuu joogaa $9, midkan $75 waxyaabo soo. marka ani hadda mar theme soo iibsaday ama theme computer-kayga ugu jiro in ku shubto marawi
waxaan rabaa theme oo free ah inaan ku shubto marka waxaan leeyahay mar kale waxaan u noqonaa themes u noqonaa mar kale qaybtan jusfal waxaan leeyahay admin markaan oo kadib meeshaan save themes meeshaan waxaan ku qoraa astaraha waa free theme oo la isticmaalo badanaa hadda shirkadaha Soomaaliga inta badan aan arko shirkadaha Soomaalida oo website-yada ay sameeyaan oo ICT solution-ka inta badan website-yadooda waxay ku sameeyaan astarahan ku sameeyaan macna waa powerful theme waaye kaas oo ku suuragelinayo in website-kaada noqdo professional waana mobile viewer waayo mobile view-giisa wax ma noqonayo maxay ahayd responsive macna astral isticmaala kan midkan kale uu jira astralkan balse astralkan asagana waa la isticmaalaa saate kana ka fiican midkana ka fiican oo waliba aniga xitaa midkana isticmaala astrahan markii website sameynayo kale markii website naqshadeynayo kale astral theme kana isticmaala waa free theme wuxuuni si fiican ula shaqeynaa page builder-ka ama page-ka dhiganaysid oo si fiican ula shaqeynaa marka astarahan aan ku shubanaa waana free macna soo marka themes aan leedahay admin waa leedahay kadibna waxaan leedahay astara leedahay markuu saan kugu soo qabto waa kana uu soo qabtay kadib waxaan leeyahay install ku shubale macna astara soo ku shubnay hadda tusaalahan oo kale website-kan oo kale ana naqshadeeyay bandhig URL iska free isticmaalay inshallah casharada dambe aan ku arkeen doonaa qaabka URL free domain name free iyo hosting free ee loo sameesto website-ka hadda wixii dhan waa wada free domain name-kiisa free waaye hosting-kiisa free waa soo jeedin bandhig.00 webhostup.com wixii dhan waa wada free soo marka saa u jeedid hadda website-kan sidaan hadda wuxuu ka samaysan yahay astro ku samaysan yahay waayahay hadda saa u jeedin website-kan saan quruxda badan wuxuu ku samaysan yahay maxay ahaadeen astro waa macna ku samaysan saa u jeedid menu-yada kor inta waxa ku qoran menu home about programs inta book now ku qoran markii oo inta waxa saaran loogada saa u jeedin quest markii xogaa la soo dejiyo fiir menu kor ku dhagaa inta waxa ku jiro slider ku jiro isbedbedelayo waa design aad u qurxoon waaye oo maalmo aan diyaarinay design-kan our program is akana scheduled inta saaran read some of our blog inta xagalaha posti waxa galayo footer-kiisa noocan waa marka website-kan waa astro macna astro marka faa'iidadaas uu leeyahay hadaan imaan adins website-kaas si fiican u naqshaday kartaa marka install leeyahay waa ku shubanaa marka ku shubto kadib waan sugaa ilaa iyo shubitaanka uu ka dhameeyo ilaa oo kaga shubo waan sugaa install markaan kadib waayahay xogaa install waqti u qaadanayo marka waayahay hadda waa kana waa ku shubmay install-da kana ujeedo ku shubmay kadib waxaan leeyahay activate mar walba wax ku shubatid macnaha WordPress laba qaab waa marka inaad dhahdo install inaad dhahdo kadib activate dhahdo marka activate leeyahay soo activate garaysmo waa kana active theme-ki kale hadda la ujeedin xaguu maray xaga gadaaluhu macna ujeedo 2020 active waxaan oo dhan active 2017 active maaha soo marka midkaana active هذا ده ويب سايت كأولابنا هذا ديمكن كمان واي مركب ممكن هذا كشوبي أسترا كشوبيلي بس واحد يتبدل من إلى ريفرش من بس هذا ده ريفرش ده واحد عا إنه لا تستبدله سأوجد وكنا ريفرش على هاي لا أوت كو يتبدل معنا سأوجد لا أوت كان أسترا سكلا فوتر كيس كي فوتر كيس بنروها لا بخير دلوقتي معنا إنه أنت about أسكو سكرة أنت نفاين أسكو سكرة كم بس وجد أنت وحق فورن سايت كتايتل كيس ويلكم تو قلت كده أنت باورد باي وحيوان سكو فورن مركا أسترا وسايت كيس وكنا قاب كيس هاي أنت لو جالس سعرن أنت محاسر منيو أنت محاسر سايد بار وجدت سايد سعر
astara qaabkaas ugu shubtay weliba hadda hoonka ay saaran. marka cashirkeeni saddexaad oo ahaa sidee free astara theme sida loogu shubaa meeshaas aan kusoo gabagabeynayna hadda aan yiraahdo intaas oo noogu egyahay. haddii ay jiraan wax su'aal ah waa ii soo dir kartaan emailkayga iyo emailka ugu soo dir kartaan haddii ay jiraan wax su'aal ah. inta ka horeysa waa idinkoo cashirada kuna noqda oo baraatikeeya si wax badan aad ugu sii faa'iideen. waa mar kale iyo engineer Abbas Maxamed Walaal Abbas web designer iyo Goal Academy oo idin leh waxbarasho wanaagsan.